maamulka waxbarashada gobolka Awdal maarka Buurame dhalinyarada sida iyo maamulka dugsiga aad baan salaamaya inta ka bacdi kullay raxda way kula shay hadallo yar oo kooban ayaan ugu talagalay afar qof oo kamid ah soo jeediyay waxaan ugu horeysanaa diiri daahir oo kamid ah sida bal afka gudida ku hadlaya iyo bismillahir rahmaanir rahiim aad ma xasantihiin waxaan aad mataqaana ugu faraxsanahay dhagax dhigista iskuulkan secondary Sheekh Ali Secondary School oo loo dhisayo lagu kordhinayo upper class upper class lagu kordhinayo in maanta dhagax la dhigo halkan goob joog ahaadaan miirka cusub mataqaana gudoomiyaha degmada cusub waxbarashada meerka cusub iyo gudoomiyaha waxbarashada iyo gudida CEC-da iyo mataqaana macallimiin badan ay ka goob joog yihiin iyo hay'adii mataqaana merci mataqaana dhismaha fulinaysay iyo injineeradii iyaguna mataqaana hawshan u xil saaraa inay qabtaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waana waxa weeyaan baahi weyn oo iskuulku uu qabay oo mataqaana ardaydu ay dhigataay hadda imka kor u dhaafayso 1200 oo qof baa waxay u baahan yihiin marka kuwan 40 kalaas iyo in badan oo kalaba sida daraadeed wax kasta oo mataqaana lagu kordhinayo iskuulka iyo cid kasta oo doonaysa inay wax ku tarto aad iyo aad mataqaana si farxad ayaan soo dhaweynaynaa oo kamid ah injineerada hay'adda Merscope oo balse hay'addu waxay ugu talagashay iskuulka dhismaha iyo wixii kale ee dheeraadaba uu noqon nafsi bismillahir rahmaanir rahiim marka hore ilaahay baa mahadle inoo suurtagelin in halkan iskugu nimaadno iskuulka Sheekh Ali Jawhar aynu dhagax dhigno marka labaad waxaan aad ugu mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka waxbarashada gobolka Awdal maayirka cusub oo waliba nin dhalinyaro oo maanta malaha dhagaxii ugu horeeyay uu dhigayo magaalada Buurama macallimiinta kale ee iyo waalidiinta iskuulka aad iyo aad baan mahadcelinayaa iyo warbaahinta xaqiiqdii iskuulka dhowr jeer baan nimid oo safar ku nimid anoo ka soconahay Merscope waxaan asaaskanay baahida iskuulada yaala gobolka Awdal waxaan isla garanay oo eegnay markaan joosnay anaga iyo wasaaradda waxbarashadu in iskuulkan baahi weyn u qabo in lagu kordhiyo afar class oo yareyn doona numberka ardayda fadhiya classkii classada aad bay concentrate yihiin way badan yihiin numberka fadhiya way fara badan yihiin marka si loo yareeyo classkii nafis u kala hela ardaydii waxaan garanay in afar class ku kordhino suuliyada qaar dib ugu habayno taangi weyn oo biyo oo inkastoo magaalada biyo aad uga dharagsan tahay oo maayirka lifsanay baahidooda biyaduna oo xisqabanayaan ay iska kooban tahay haddana taangi hadii wax dhacaan taangi weyn oo biyo iskuulka u kaydiya oo lagu shubo ayaan insha Allah isagana u dhisi doonaa in hay'ad Merscope activities-kaas oo qolo ka qaban mayse waxaan iskuulka insha Allah hadii la ka dhigo isla mar wada bilaabi doonaa aadan saaq oo si inta ay laga ku korin doono macallimiinta iskuulka ka tigmayna macallimiinta tababar loo qaban doono waalidiinta iyaga malaamka tababar ku jiraan oo u socda tababar kale iyagu ka bilaabmi doona waxyaalo badan bay hay'adda Merscope ka qaban doontaa gobolka Awdal insha Allah aad iyo aad baad mahadsantiin maan walaalahay horta marka ugu horeysa waxaan salaamayaa hay'adda Merscope oo maxay ahayd markaasi dugsigan Sheekh Ali ugu deeqday dhismaha maanta aan dhagaxiisa dhigayno oo ka kooban 4 fasal ay u dhisayso iyo musqulihii oo dib loo hagaajinayo waxa weeyaan dugsiga Sheekh Ali waxa weeyaan muraayada iskuulka ama gobolka oo dhanba waxa weeyaan hore waxa uu sii dhisnaayo waliba si qaabaysan oo hab jaamacadeed u dhisan 20 fasal oo hore u dhisnaa imikana waxa loo iyo xafiisyadoodii laboratory waxa soo dhanba u dhisnaa waa iskuul aad u qaabaysan dad badan oo imika wax tara wadanka oo maaragtay madaxdiisuna ay ka soo baxday muraayadii waxa weeyaan magaalada maantana waxaan aad ugu faraxsanahay in afar kale loogu sii daro oo markaasi maaragtay fasaladu ay noqdaan 24 taasi oo ay keentay in iskuulada kale prefer laga doorto in isaga loogu biirsho ardaydiisa aad iyo aad u fara badan
markaasi fasalladii baa noqday maaragtay overcrowd ama se maaragtay ka batay marka waxa loo baahday in ardaydu kala nafisaan sidaa darteed baa 4 loogu biirinayaa geesta kale Sheekh Ali Jawhar ma aha ka lagu biirinayo fasallada waxa weeyaan waxa kamid ah aadan isaaq oo hore muddo dhaweyd kulku madaxweynaheena suubani gobolka Awdal oo yimid dhagax dhigay oo sameeyay taasoo la jirtay wasiiradda waxbarashada maadaam samsam iyagoo wada jira ay dhagax dhigeen isaguna uu ku jira waxa kale oo ku jira oo hawshaasi la qaybsanaya ardaale dugsiga sare ardaale oo isaguna ku daba xigi doona waxa weey markaas hay'adan Crobis Mercy Crobis waxyaabo badan bay noogu ballan qaado u badan maaragtay dugsiyada sare maanta waxay tababaraysaa tababarkii u soo xirmaya isha dhow khamiista dambe gudiyadii saddexda iskuule hawsha laga qabanayo siday ula shaqayn lahaayeen injineerada shaqaynaya waxa soo dhan habka loola shaqeeyo hay'adaha la baraya hadda kadibna sidaas ay u soconaysaa dayreer haday tahay dugsiyo kale haday tahay waxay noogu ballan tababarka macallimiinta haday tahay wax badan bay noogu ballan qaadeen marka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan marka hore u mahadnaqayaa Ilaahay noo suurta galiyay inay hawshan si wanaagsan noogu qabsoonto inagoo maanta ka hadlayna qayb ka mid ah qaybaha furaha u ah nolosha aadamiga mar labaad waxaan u mahadnaqayaa hay'adda Mercy Crobis oo runtii in badan kan maahay in badan involved ku ahayd xagga waxbarashada oo gobolada Soomaaliland meel badan wax soo qabtay arooyiga gobolka Awdal maamulka dugsiga Sheekh Ali Jawhar Sheekh Ali macallimiinta kale ee dugsiga Sheekh Ali Jawhar iyo marti sharafta kale halkan joogta waalidiinta gudida waalidiinta waxbarashada waxaan aad ugu mahadnaqayaa oo kale sida soo dhaweynta leh ee ay u sameeyeen gudidu in iskuulkii ay iyagu gudida ka ahaayeen wax kasta oo wanaagsan iyaga priority la siiyo kullay hawshan waxaan u maleynayaa inaanay ahayn arrin intan uun ku kooban dhagax dhigani waxaan anigu maanta aad farxadii ah aniga oo maayirnimadii la dhaariyay 3 cisho ka hor in aan la kowsado isbedel cusub oo horumarneed ayaa maanta aniga farxad ii ah darada halkaan hoolka iskuulkan Sheekh Ali Jawhar ayaan shir ku lahayn aan kaga hadlaynay xaafadda iyo horumarkeeda aan kaga hadlaynay tan waa tii labaad waxaan u maleynayaa horumarka degmada inuu Sheekh Ali Jawhar ugu horeyn doono haduu Ilaahay dhaxdo waxa kale oo mahadnaqayaa kulli aan in badan baan xagga hay'adaha ku soo dhex jiray Mercy Crobis kulli xagga waxbarashada iyada iyo ADC iyo hay'ado badan oo waxbarashada aad involved ugu ah baahiyaadkuna waxay ku fiican yihiin marka ay ka yimaadaan bulshada markay ka yimaadaan bulshada markay baahidu ka timaado ayay midho leedahay laakiin marka wuxuu dusha laga keeno taas macna badan ma sameynayso waxay tani muujinaysaa sida idinka go'an tahay in baahidan ay ka timid bulshada waxaan rajaynayaa sida ay hay'adaasina ugu ballan qaaday inay idin dhisto 4 class waayo sida caadiga ah classku hadduu 40 qof ka bato waxba lagu ma dhigi karo arday isma dhigeysan karaan macallinkuna wax ma gaarsiin karo baahiyaad ka yimid xagga dugsiga iyo bulshadiisa ay horta baahidana ku timi waan sideeda looga faa'iideysto annaguna ka maamul degmo ahaan heel iyo hooba uu la garab taaganahay بقى مسلكين لا ده